25 bisha iyo si degdega oo dardarteedii wadata gudoomiyaha barakacayaashu uu xaflad halkeer ka sameeyay oo yiri labadan beelood baan matalaa oo aan murashaxiin u wadaa anigu runtii waxaan oran lahaa gudoomiyaha barakacayaasha ninka odaygii title kalaan u hayaa waa gudoomiyaha barakicinta waayo dad badan buu xisbiga kulmiye ka barakiciyay ninka sawirka iyo muunada uu halka ka bixinayay wuxuu waa mid ugu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye laakiin mid dadka gobolka Togdheer ay ka iibsadeen maaha waa la soo dhaafay xilligii la oran jiray burco hays barato burco way istaqaanaa qamaamuurtii iyo qoorweyntii labada reer halkan ay caawa fadhiyaan labada xildhibaan bay isayaan waxa la yiri lax gowracani way galgalataa oo geeday jiida madba iyadoo gowracan bay geeda jiidaysaa anagu maanu diidin inuu xaflad samaysto xaq buu leeyahay inuu xaflad samaysto hadii de sawirka idinka iibsanayso laakiin ninka odayga ah aflagaado iyo deelqaaf baa habeenka ka tagay iyo hadalla aan munaasab ahayn aflagaado ku ceeba mas'uul qaran iyo ka tagtay Soomaaliduna waxay tiraahdaa aflagaado nabadna way ka kaxaysaa colaadna wax kaaga ma tarto waxa kaloo la yiraahdaa waraabe ulla lala gaari waa ayna wax lagaga qaadi waa markaanu siyaasadda u soo xaydanay de waraabayaasha aan af wax lagaga qaaday baanu nahay oo dhirbaaxada ceel cad baanu uga nimi laakiin isaga iyo afkiisa iska xumeeyay gobolkan iyo labadan reer waa laba reer oo in badani wax ka dhaxeeyeen ninka odaygii intuu soo dhex galay iyo isku dayay inuu midnimadooda wiiqo wuxuu yiri laba ex wasiir ayaa reerahan furfuraya oo markay xil xukuumadda ka waayeen furfuraya indhaha macallina labada reer ee uu sheegaya maanta maalin ay ka wanaagsan yihiin ma jirto maanta maalin ay ka midaysan yihiin ma jirto way isku dhafan yihiin wada jir bay u wada socdaan waanan ehela oo aanu wax badan isu nahay marka sidii sayidkii oran maayo godka lagu cadaab muxuu go'u been sheegay oran maayo in yaroo ka khafiifsan baan odhanayaa waxaan odhanayaa eraygaad ku tirawday iyo arrinkaasi gaf weeye bal istaagfurulayso inaad eerow kutubtii iyo quraankaad xoortay dib ugu noqo ilaahayna ka cabso waxa ninka odaygii halka ka yiri ina yar baa ku guuraya ina yar yaa hudheel halkeera burcad jiifa oo ku guuraya warbalnimo yahow ninka uu inanka yar ku sheegaya waa maxamuud xaashi waa ninka dhowr iyo 60 jirka ee timuhu cadaadeen ee soddonkii ugu sanadood ee ugu dambeeyay saaxadda Soomaaliland ku jiray siyaasiyiinta ugu tunka weyn buu ahaa dawladii Axmed Siilaaniyo ninkaasuu inan yar ku sheegaya يعني قفك مبدئيسا إيا سياسديسا وكاقو هوري من كرتا وكل الليلي كرتا فلسفة إيا سياسة إيا بوليسي ولا دودي كرا ولا يسكو دوري كرا لكن نوين أو أضياء أو كمية سياسيين تا بيلوين تن إنو يعني وارهقريف نمو
وحقيرات حاكم كين الدلاية حقيرات ما فيعنا لكن waxa ka sii daran waxa warinaga is haynay oo masiirka labada reer isku haynay maxaa ina xaashi keenay war maxaa ninba bari gabadh la weydiistay oo markaasuu hadal aanu filaynin lagu yiri ninkii wuxuu yiri war markaan xaawa aroostiyo maxaa keenay xisaabta war maxaa ina xaashi keenay inaga wada hadlaynay waxa la yiri bahalka shabeelka yaa la yiri shabeelow dhashaadii geel baa laayay ilaa shabeelku geel ka aargoosan kari maayo kama adkee shabeelkii baa yidhi may geel muu layne giiraa laysay giiro taasuu isagu ka adagi markii ninkaa odaygaa lagu yidhi war reerkii samanaa abokor iyo yeesid maxamed galaal iyo xuseen guray bay raaceen iyuu yidhi may waxay raaceen ina xaashi war yaa alla yaqaana waxa aan runtii qofka ladnaanta iyo xilku inuu uga daro maaha waayo wax badan baa la xeeriyaa ninaanu saaxiib nahay oo yeesifaho axmed shiina la yidhaahdo oo barigaannu yaryarayn gabayga isku tuurtuuri jiray markaannu gabay baradka ahayn ayaa wuxuu yidhi barqadherega xooluuba wuu birinbirqeeyaaye adna bari samaadkaa taqaan iyo booli xooftada waxaa kale oo ninkii ilaahay u naxariistay maxamed nuur fadal wuxuu yidhi ladnaanta iyo nimcadu uunka way wada lugoysaa war inaadeerow yaanay ku lugoyn xilkaa iyo weligaa sidaa u qaro weynaan maysid weligaa xilka hayn maysid ee tol iyo ehel iyo wax badan oo la xeeriyo iyaa jira ha la xeeriyo ninkii la odhan jiray ilaahay ha u naxariistee fanaankii weynaa fanaanadaan ugu jecelahay maxamed axmed kuluc hees buu lahaa la yidhaahdo xurmadaran baa la yidhahdaa heesta xurmadaran midhaheeda waxaa ka mid ahaa xumaanta iyo dhibaatada xooggaygaan ku doonteen nafsiga xaabo lagu daray xumaanta iyo dhibaatada anigu waxaan isleeyahay saaxiibkay maanta hadduu hees ku qaadayo uurkiisa taa ama la miduu ku qaadaya waayo xumaanta iyo dhibaatada xooggiisu ku shaqaystay markii boorweyntii iyo qamaamuurtii yeesif maxamed oo burca ku shiraysa oo masiirkeeda iyo arrimaheeda ka shiraysa intuu askar u dalbaday hudheelkii ay joogeen uu ku xidhay square ka qabtay oo awooddii dawladda ee ammaanada ahayd uu si xun u isticmaalee ku joor falay markaasuu xumaanta iyo dhibaatada xooggiisa ku doontay yeesif maxamedna maalintaasaa ugu dambaysay markaasay siri dhaqaaqeen waxa weeyaan weliba xitaa raggii dhexdhexaadka ahaa ee islahaa dadka isu soo jiida ayaa maalintaa quustay waan soo koobayaa anigu abwaan ma ihi laakiin marmar baan maskaxda tuujiyaa jiifto aan beri hore tiriyey baa la moodaa maanta inay ku habboon tahay waxay ka digaysaa wax badan bay ka digaysaa nebigay ku salliyaysaa calayhi salaatu wasalaam waxay odhanaysaa nebi maxamed guudkiyo gondihiisa hoosiyo goonyaha agtiisiyo gadaal iyo hortiisaba gallad iyo salaan goba rabbi hayga geeye markii uu guddoonkii eebba soo gunaanaday u gorfeeyey noolaha guulsida wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam guulsida wuxuu yidhi nacabkiinnu waa gocor qudcur weeye baas qudcur maaha waa nin madow laakiin maqaarka kama madoobee qalbigaa loo jeedaa qudcur weeye baasoo goldoloolo badane ka gaashaanta abidkii gocashada xadiiska leh waxaan uga gol leeyahay dee in badan baan hadlaya waxaan uga gol leeyahay waad iska garanaysaani
waxa aan intaa ku soo gabagabaynayaa bini'aadamku wuu khaldamaa khaladkana ilaahay waddo lagu saxo iyuu ina tusay diinteenna iyo xadiiskeenna aynoo sheegayaan waa toobadkeen waa garowshiiyo waa raalligelin waa hadal san oo wanaagsan hadalka san ee wanaagsani qudhiisu waa sadaqo anigu saaxiibkay waxaan ku leeyahay anigoo ammaanaysanaya erayadii ilaahay haw naxariistay abwaan cabdilaahi cali in adeer maqal waanada oo mahadnaqoo kaalay haddii kalese waa magalle madaxa aan dhowro intaasaan odhanayaa waxa kale oo aan ku soo gabagabaynayaa 3 qodob oo kooban waxa weeyaan mid hal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan ku leeyahay halna xisbiga kulmiyaan ku leeyahay halna madasha halkan fadhidaan ku leeyahay hal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan ku leeyahay oo afdheerina haygu noqotee mudane madaxweyne dadkii codka ku siiyay ku doortay kuwii ku dhisay kuwii kula ololeeyay afarta geesee dalkan meel kastaba kula saqaafay waxaa xukuumaddaada ku jira dad kaa fogaynaya danna qarankan uma aha danna dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland uma aha danna duuga dambe iyo dhaxalkaaga iyo legasigaaga uma aha arrintaa hoos u eego wax ka qaba mudane madaxweyne taasi waa koow midna xisbiga kulmiyaan ku leeyahay anigu horta waqtigan xaadirka weli kulmiyaan ahay laakiin mooye hadhow siday noqon laakiin iminka waqtigan xaadirka weli xisbiga kulmiyaan ka tirsanahay xisbiga kulmiye hoggaankiisa sare dad waxa qabqablayaal ka weliba guddida fulinta qaar dad ay firdhiyaan mooye dadka aan soo dhoweyn karaynin qaar digdig iyo iswaal iyo xajiin dadka kula dhex jira hoggaanka sare xisbiga waxaan ku leeyahay xisbigii wuu dhiig baxay dad badan baa ka baxay intay goor tahay wax ka qabta ama kuwa meesha ka saara ama naga dabra intaasaan leeyahay waayo rag badan baa ka baxay xisbigii wuu dhiig baxaya qodobka saddexaad waa madasha halkan caawa isugu timi labadan beelood iyo marti sharaftaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay mahadi ilaahay ina solonsiiyey inaynu codkeenna isku darro labadan beelood xilligii jihaadka ee lagu jiray dagaalka wax waliba way isugu jireen raashinkaa isugu jiray rasaastaa isugu jirtay waxa isugu jiray hubka hadda waa waqti ragga qaar ay lahaayeen wadaadda sheeganayay jihaadkuba waa xaaraan wax waliba way sidaasaynu dalka ku xoraynay maantana waa mahad ilaahay haddii aynu wax wada qabsannay aynu tala wada yeelannay insha allah bismillaahi kariim xildhibaanadiinnaasna waynu soo saaraynaa guddoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maaha xildhibaanadii ugu horeysay aan xisbiga ka dhiso anigoo kulmiye khalad iyo ixtiraam darrana sida ragga qaar leeyihiin uma arko hargeysana qaar baanu ku dhisnay oo aanu ku sharaxnay aad iyo aad buu u mahadsan yahay sida sharafta leh ee uu noo soo dhaweeyay asxaabtii qaranku waxa weeyaan markay madaxtooyada tahayna waa iska fiqi tolkii kama janno tago tanna reer waliba xubnihiisa wuxuu ka soo saarayaa meesha uu dan u arko meesha uu u arko in maslaxadda reerka iyo deegaanku ku jiro aad iyo aad baan idin salaamayaa aad baan idinku mahadnaqayaa haddaan ku dheeraaday hadalkana raalli ahaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu